السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دمت الله ونحرست انت حنوسين الله عافية وحمرات للمرات وخير الله السي امين. ما انت عرض يكون بيغن تشنتي بشلا بيتونات كنا فربخ الافرت الدو كبيغن لواتن لودي بيشنات لواد كون لواتن لحدة كسو دوادا وحر حلقة بين أول هذا ورنا جسوا جارة إيران أي شيء يسو إنس مرة ما أنت يقول رئيس ما أنت أو جماعة يقول بين صدن الشن مركب أو جناسي كواسو أو سيدي شيدال ay ku gudbeen marinka Hormuz 24 saac oo la soo gudbay. Iran ayaa ciidamada ilaalada ayaa sheegay in Iran ay sheegtay sugidda marinka Hormuz ay socdaan inkastoo amni darrada uu ku beeray Mareykanka ku beeray Mareykanka marinka Hormuz hadalkaas oo u dhigeen shalay oo Khamiista ahayd ayaa waxaa gudbay 31 markab markii ugu horeysay marinka Hormuz maalintii ugu horeysay. Iran ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay dhistay ciidamo oo ilaalinaya marinka Hormuz kana qaadaya canshuur markab kasta. Iran ayaa ilaa koonfurta Kujara dhanka badda dhanka bari iyo laga bilaabo dhamaadka jasiiradda Khash ilaa Kuwani dhanka galbeedna waxay sheegtay in maraakiibta ay doonayaan inay maraan agagaarka ay ugu gudbaan Hormuz ay qasab ku tahay inay la xiriiraan ilaalada Iran ay fasax ka helaan. haddii fasax ka qaadanin maxaa dhacayo markii waa soo qaadanaya markii wax la tooganaya in socdaan maraakiibta marinka Hormuz oo marin u ah ganacsiga caalamiga iyo shidaalka caalamka. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay tilaabada uu qaaday Iran aan la aqbali karin in aad uga xun yihiin. sidoo kale madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Iran ay qaad waxaan la aqbali karin ay dhahay canshuuran ka qaadayna marinka Hormuz ciidamadana waa u sameynana wax la aqbali karo ma jiro ayuu dhahay. sidoo kale midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin sida waxa ka mid ah Greega, Romania, Faransa, Portuguese, German iyo UK. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Germanka ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inaanu garan saldhig siinayo ka howlgalaan ciidamada Mareykanka. Iran waxay ku adkeysanaysaa in maraakiibta maraysa marinka biyoodka ay tahay mid ogolaansho ka helaan ciidamada qalabka sida Iran, iyadoo sidoo kale isku dayaysa inay canshuur kusoo rogto maraakiibta isticmaasha marinka Hormuz. dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rubio ayaa maanta oo Jimcaha sheegay in nidaamka ay Iran doonaysa inay lacag uga qaado maraakiibta maraysa marinka Hormuz uu yahay mid aan la aqbali karin. madaxweyne Donald Trump ayaa isna Khamiistii sheegay in oo shalay ahayd Mareykanka aanu aqbali doonin inay lacag kusoo rogto marinka biyoodka Hormuz maadaama uu yahay marin biyood caalami ah ayna Iran lahayn. wasiirka arrimaha dibadda Germanka ayaa sheegay John inuu ka qayb qaadanayo sugidda amniga marinka biyoodka Hormuz. NATO ayaa sheegtay in dalal badan oo Yurub ay ka qayb qaadanayaan in saldhigooda si ugu duulaan uga duulo Mareykanka, waxaana Yurub saldhigaas ka mid ah UK, Faransa, Portuguese, Greega. howlgallada marinka dalaalada waxa ay ka mid yahay hadda in sheegay. marka walaalahay waxaan rabay qodobkan inaan inga daba geeyo, waa qodob xasaasi ah bal wixii kusoo kordho waa arki doonaa wararka xiga insha Allah. waxaan leeyahay nabadiino jimca kariim. tan kale aan ugu daray maanta waa 5
وانا مالين جمعة وحال لها سي علماء اي شيغان ايو اي خلاف حوير دور جير مر دهان marka khudbada labada imaamku fadhiisto ayaa la duceystaa maray dhahan laakiin sida raajic ah saacada ugu dambayso inta maqrib la gaarin walaal ka faa'iideyso maanta min fadli ka faa'iideyso walaalay ka faa'iideyso walaalu ka faa'iideyso hal saac wax ma ka dhimayso hadda ciyaal haysta ciyaalkiisa ka waxe hadda mashruuc haysta mashruuc 30 daqiiqo meesha duceyso ducada waa loo aqbalaya hadda dib kugu taagan yahay hadda ma garanaysaa wax ay jira dib oo ma garanaysaa dhinac kasta hadda deyn lagu leeyahay hadda xanuun lagu leeyahay xanuunku hayo hadda ma garanaysaa arrin dhinac ay iska qaban laasan tahay duceysa maalinta is the best day maalinta ugu wanaagsan way hadda maalin ma in ilaahay ku dhaarto wal fajr wala yaal al 10 la maraya marka waxa qodobka in lagu baraarujiyo in ku darsado ka ugu faa'iideysto marka waan salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi